bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena halkan waa channelkeenu ku leenahay YouTube-ka ee madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadeedkan idinku soo maqana waxaa ka mid noqonaya Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur wasiirka diinta iyo qaafta iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu la kulmayaa qoyska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax waxa uu ku qaabilayaa xaruntiisa wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta faaqidaada iyo daawadayaal ku sameyn doona door nooce ah ayaa Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur hogaamiye ku-xigeenkii hore Al-Shabaab uga furan kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax cadaalad raadintiisa faaqidaada iyo daawadayaal saaxiibayaal ku sameyn doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kaleba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa u xil saaray Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur in uu ka gungaaro cadaalad raadinta loogu jiro kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax xog ka qarsoon ayaa daawadayaal barnaamijkeenan idinku soo gudbi doona Ikraan Tahliil Faarax hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad maxaa ka jira in ay u tagayso Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur sidoo kalena ay kala hadlayso arrimo fara badan oo ku gadaaman kiiska gabadheeda iyo sidii cadaalad loogu heli lahaa kooxdii dalka ka talinaysay 5 sano ee la soo dhaafay oo majara u ay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo maxay iminka dareemayaan sidee ayay soo arkaan in kiiska Ikraan faylka ku saabsan gacanta loo geliyo Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo 5 sano ee la soo dhaafay ayaga u ahaa xabsi guri faaqidaada iyo saaxiibayaal daawadayaal ku sameyn doona halkan ayaanu idinku soo gudbi doona daawada saaxiib meel waliba joogto soo dhawo muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo beer subscribe inoo saar channelka faragan baralka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku maasan tahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawade saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay aynu ku bilaawno kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax ayaa waxa uu yahay mid iminka la furayo feelalkiisa waxaana gacanta loo gelinayaa rag culculus oo ka tirsan dowladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horeeyo Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo loo doortay inuu noqdo wasiirka diinta iyo sidoo kaleba arrimaha oo qaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur ayaa 3 sano waxa uu xirnaa dowladdii uu hormuudka ama majara u ay madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Mukhtaar Robo ayaa haatan damcaya in uu ka aarguto shakhsiyaadkii isaga ku dulmay awoodda dowladnimada oo ay ugu horeeyaan Farmaajo iyo sidoo kaleba saaxiibkiisii siyaasadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kiisas dhowr ayaa jira oo Fahad iyo Farmaajo ay sameeyeen intii ay ka talinayeen Villa Soomaaliya waxaase ugu weyn kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax oo markaasiba kiis shacbiyad haysa isla markaana dowladda cusub ku kasban karto shacbiyad iyo sidoo kaleba taageerayaal aad u fara badan madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa intii uu xafiiska joogay waxa uu hor istaagay in gabadhani lagu dulmay awoodda dowladnimada loo raadiyo cadaalad Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa kiiskan lagu eedeeyay inuu isaga ka dambeeyay balse waa uu iska diiday waana uu dafiray kadib markii dhawaan uu sii daayay waraysi dhif iyo naadir ah oo uu ka qaaday wariye Faarax Cabdiqaadir Geylaan waraysigaas oo looga qaaday markaasiba dalka Turkiga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan waxa uu hunguriyeenayaa sidii uu Farmaajo iyo sidoo kaleba Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ugu xujeen lahaa inay ka soo garbaxaan shacabka Soomaaliyeed oo ay ka galeen gabood falaacul culus intii ay talinayeen oo ay joogeen madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleba ra'iisul wasaarihiisa xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa gacanta ku haya faylal dhowr ah oo markaasiba ku gadaaman gabood faladii iyo sidoo kaleba ficilooyinkii foosha xumaa oo ay dalka ka geysteen Fahad iyo Farmaajo 5 sano ee la soo dhaafay
ay joogeen qaranka Soomaaliyeed isla markaana ay u ahaayeen adeegayaal. kiiska Ikraan Tahliil Faarax waa mid taagan ilaa iyo haddana loo baadi goobaya cadaalad. waalidiinta gabadhan lagu dulmay awoodda dowladnimada ayaa waxa ay raadinayaan qudhooda cadaaladda, waxa ayna doonayaan in dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud hogaaminayo in ay u cadaalad fasho isla markaana shakhsiyaadkii ka dambeeyay afduubkii iyo dilkii lagula kacay Ikraan ay soo istaajiso maxkamad si loogula xisaabtamo wixii ay faleen. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Yaasiin Cabdillaahi Maxamuud, Yaasiin Faray Cabdillaahi Aadan Kulane iyo sidoo kaleba ninka kale lagu magacaabo Cabdiqani Dhiirane Wadnaqabad ayaa kiiskan si gaar ah loogu eedeynaya. 40 shakhsi ayuu kiiskani ku lug leeyahay, waxaana dadka falaqeeya siyaasaddu ay leeyihiin waa in la soo istaajiyaa maxkamad si toosana loogu ciqaabaa wixii ay galabsadeen ama wixii ay markaasi sameeyeen amaba ay faleen. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir si uu uga baxsado gacmaha cadaaladda waxa uu u baxsaday wadamada caalamka gaar ahaan Turkiga iyo sidoo kaleba Qatar. waxaa la soo warinayaa in habeene kala gedisan oo halkaasi seexdo wadamadaasina uu kala safro si uu hay-adaha garsoorka uga baxsado gacantooda. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya saaxiibkiisii siyaasadda Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ku wacyigelinaya in uu ka soo tago magaalada caasimadda Muqdisho oo uu tago Dooxa caasimadda waddanka Qatar maadaama halkaasi ay yihiin shirka siyaasadeed 5 sano ee la soo dhaafayna ayna xulafo ahaayeen oo ay isla qaraabanayeen. Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur si waliba ha noqotee haatan waxaa laga warsugayaa sida uu u abbaaro kiisas dhowr ah oo markaasiba ay u dhiibeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. kiisaskaas oo ugu weyn yahay kiiska afduubka iyo dilka isugu jira ee lagula kacay sargaalada Ikraan Tahliil Faarax. Ikraan waxay ahayd gabar dhalinyaro ah, da'deeduna lagu sheegay 23, madaxii internetka ee hay'adda NISA Cyber Security ayay ahayd. waxaa la sheegay in la dilay oo la qaarijiyay 26 Juun sanadkii hore 2021 abaara 2 saac fiidnimo. waxaana haatan kiiskeedu uu yahay mid soo xoogeysanaya maalinba maalinta ka sii dambeysana waxaa sii kordhayaba baaqyada culus ee loo dirayo madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. baaqyadaas oo dowladda cusub looga dalbanayo in ay cadaalad u raadiso Ikraan Tahliil Faarax oo markaasiba gabadh maqane ah ilaa iyo haddana aan la ogeyn halka ay sal iyo raad meel dhigtay. kiiskan waxa uu taabanayaa saraakiil kala gedisan oo ku jirta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hay'addaas ayaa isaguna waxa uu wadaa baaritaano kala duwan. Mahad iyo sidoo kaleba Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur ayaa isku kaashanaya kiiska afduubka iyo dilka isugu jira ee loo geystay sargaaladan maqan muddo 1 sano ee lagu magacaabay Ikraan Tahliil Faarax. Mahad Maxamed Salaad ayaa cadowtooyo ballaaran waxa ay kala dhaxaysaa agaasimihii isaga markaasiba kaga horeeyay shaqada NISA ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaas oo lagu xamanayay 5 sano ee la soo dhaafay inuu ahaa milkiilihii dowladii Farmaajo. Mahad Maxamed Salaad oo markaasiba ah saaxiibada ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu doonayaa oo kaliya in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la soo taago maxkamad u arko isla markaana iyadoo loo haysto kiiska Ikraan Tahliil Faarax ay daawadaan shacabka Soomaaliyeed. Fahad iminka waxa uu wajahayaa xaalad midii ugu cuslayd. Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo isbahaysaday ayaa ninkan dagaal adag la galaya, waxa uuna wajihi karaa ayaa la leeyahay markaasiba marxalad aad u culus. xalkeeda hay'adaha garsoorka ayaana waxaa laga yaabaa xitaa in ay qaataan go'aan qaraar oo loogu cadaalad falayo Ikraan Tahliil Faarax maadaama la dilay. haddaba daawada saaxiib wixii warar oo ku soo kordha kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbi doonaa. muuqaalkan daawada saaxiib like saar sina share garay nagu soo biiro subscribe inoo saar channelka
fura gambalaalkaasi durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino. waa ku mahadsan tahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb. tan iyo barnaamijkana kiisa kale intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.